ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa caawa magaalada Burco waxay ka bilaabeen hawlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Burco. ciidamada kala duwan ee booliska ee gobolka Togdheer ayaa lagu arkayay sharciyada waaweyn ee magaalada Burco iyagoo baaraya gaadiidka kala duwan. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer gaashaale sare Maxamed Faarax Dhuur ayaa ka warbixiyay hawlgalladani caawa ay ku xaqiijinayaan ammaanka magaalada Burco. wax dhibo jira ma jiraan baarisani waa baarisay caadiga ahayd waxa weey waxaan ku jagaraynaa mukhadaraadka iyo waxyaabihii kale waa hawl maalmeedkayagii waxaan wadaynaa baaraynaa gaadiidka wax kale soo kordho aan leenahay Togdheer nabadgelyo darra ka jirta ma jirto waxa weey baaris nabadgelyada aan ku xaqiijinayno weeyaan wax kale problem oo jiraan ma jiraan insha Allah khayr bay noqon doontaa كل كجمد وانا انتي هران ودنا وانودينا وانوسي ودينا oo ma joojinayno way soconaysaa marka gobolkuba ku sugayna wax badan oo jiraan leenahay saasaa jirta ma jirto laakiin se waxaan u sheegaynaa ninka dhuxlaha ama dhinac ka wareegaya ama mukhadaraad keenaya ama hawlo kale keenaya iyaanu tusaynaa inaynu foojiganahay waanu soo jeednaa waxaan leeyahay Burco waa nabad weey كل إنسان يبغى كشري سعادي مكان كشري واحد يبغى تاجر ما شرته رنتي تدخل الرالي بكينا ونسوده وين ومشكلة ضوء خلا كلنا دت كما شرته قاعد بينقصينا وليبا يا قاعد نقصينا ولا هاي هو شو هذا سلام بينه قدريان ما شاء الله خيروي قدري الريب برعو مخدرات كقعنها نقصيان ما أنت خبر يانو برجوريني ويجي هرنا أنت كوريسنا إما كدور كنا اللي تربان مرينا waxaan leeyahay gacan hanaga siiyaan xashiishada ku soo badatayna war carruurtiina hal loo meel dayo hal naga ilaaliyo hal soo sheego sidii awalba gacanta aan soo haysanaa isku haysanaa geesta kale maayarka degmada Burco Cabdirasaaq Ibrahim Cabdi Heero ayaa dhankiisa waxa uu bogaadiyay ciidanka booliska gobolka Togdheer hawlgalladaasi ay ka fulinayaan magaalada Burco Shucayb Xasan Dheere Home Cable TV magaalada Burco iyo magaalada Burco bartankeeda ciidamada nabadgelyada degmada oo ku jira hawlgalladoodii toddobaadlaha ahaa ee sugidda ammaanka noocyadiisa kala duwan nabad sugiddu kaliya ma laba qof oo is haysta oo la kala qabto ama qof dambiile ah oo la soo xidho ama qof mukhadaraad oo meel lagu soo qabto laakiin nabadgelyadu noocyo badan oo kala duwan bay leedahay haday tahay ammaanka haday tahay hubka haday tahay dhaqanka haday tahay maandooriyaha iyo hadii ay tahay waxyaabaha kale bulshadu aanay badanaa ku baraarugsaneen iyagoo aan dareensanayn laakiin laga hawlgalo marka waxyaabaha kala duwan xiriirada uu leeyihiin ciidanku iyo degmaduna aad bay wanaagsan yihiin hawlgalladana waa ugu mahad celinaynaa toddobaadlaha ay qabtaan insha Allah waa la balaabaynaa nabadgelyadana waa xoojinaynaa sidii ahayd waa ugu mahad celinaynaa magaalada Burco iyo dadka ku nool sida ay ammaanka u gacan siiyaan ama raalli uga yihiin wixii qaldan ay arkaan inay si degdeg ah u soo sheegaan hawlgalladaas baa jira insha Allah dadka waa u soo jeedeynaa inta badan iyo inta ay wadaana feejignaanta inay kordhiyaan u baanu dadkana ugu baaqaynaa lagu nastaa halkaasa lagu tagaa dhulkaaga lagu hodnaa harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu tagaa haddaba ha moogaanin White House Hotel oo ah mid casri ah
haddaba aan idiin tilmaamay waxa uu ku yaala degmada Ibraahim Koodbuur jidka masaajidka Salaama dhinaca waqooyi ee marka kor looga soo kaco hoteelka Laykasal ama safaaradda Turkiga ay ku leedahay Hargeysa ama wixii faahfaahinaya intaas si dheer kala xiriir telefoonada shaashadayda ka muuqda